الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شيء جوار حسين halkan nagala socotaan waa channelkeena Jawaar Xuseen inoo maamusha waxa rajayna in caafimaad qabtaan sida aniga ba aan u caafimaad qabo. Waxa jiro video oo hadda YouTube share gareeyay anima share gareeyay YouTube share gareeyay video aan daabacanahay hal sana ka soo wareegtay qaamadii markaas la soo qaaday oo sidaas aan ku soo noqday intay dhacday ciqaamadeeda kale ay dhacday tii saddexaad hadda xareystay ay xareysan tahay marka videogaas min zamaan oo aha mar hore oo aha hal sano yani bilaha dib u eeg 12 bilooda ka soo wareegtay ma fahmaysiin marka videogaas hadda ma ahan ani hadda waa caafimaad qaba waxba igama maqno alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala bay mahad iyo shukr u sugnaatay aada u fiicanahay aad maalintaasna xoogaa jirka madow ay qaaday laakiin mar dambe ma dhacayso insha Allah ta'ala biidnillaahi alkarim mar dambe ma sameyn doono insha Allah marka in qisadan maanta aniga ka codsanayo qisada maanta ina dhameysatid qisada maanta illa igadaal ina ka sal gaartid aniga ka dalbanayo aniga ka codsanayo qisadan waaya hada dhameysatid waxaan huba in salaad subax dambe aysan ka tageyn salaad subax dambe si maxay oo la kac aysan kugu dhaafeen salaad subax dambe ay si oo cayar aysan kaaga tageyn ina waardi ka noqon doontida huba aan huba salaad subax الأرمي اللي صارتها iyo maxay raadaasi qof oo dhigta kaaga qayliile wacta kici arhada qofku soo wacale sameysata adigay ku taala adigay ku jirta laakiin waxaan huba videogan hada dhameysatid in salaad subax dambe aysan ka tagayn okay qisada maxay ku bilaabanaysaa oo cibra qaadashada mudan oo aadka aniga Jawaar Xuseen ahaan ay soo jiidatay adinkana aan hubo inay idin soo jiidan doonto asxaabtiina u diri doontiin adinkana dhameysan doontiin waliba ka dalban doontiin asxaabtiina in asxaabtooda u sii diraan insha Allah ta'ala okay qisada waa maxay waxay ahaaday gabar muslimad ah gabar muslimad ah waxay ka shaqeynaysay meel ay u badan yihiin dad aan diin haysanin oo aad waxa ay markaas aaminsan yihiin ee ugu adag yihiin dad waxa jiro mesela had dad muslimiinta waxa jiro dad diinta mushaddad ku ah aad ugu dhagan dadna yani saan iska waay di way muslim waay ilaa way dukadaan laakiin mushad ma ku ahaanay saas ugu ma adadko hadda gaalada qof walba diintu haysto waxa jirta dad sidaas ugu adag diintooda waxay aaminsan yihiin in haday dhagax caabudayaan hadii aan Allah musta'an buudi ay yihiin hadii ay siiq yihiin hadii ay najuus maalaha ay yihiin hadii ay mulxid yihiin ay hadii ay kristaan yihiin iyo hadii ay yahuud yihiin intaba waxa jira dad diinto ay haystaan sidaas ugu adag jiro marka dadkaas waxay ahaayeen dad diinta sidaas ugu adag gabadhan waxay ahayd gabar muslimad dhab ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala islaamnimadeeda dhab maxay raadaasi u aaminsiiyay subhanallah aad waxay ahayd maadaama wadan dal ee ku nooshahay wadan dal ay islaam ahayn oo meesha ay ka shaqeysana in dadka oo ka shaqeeyo islaamka la xataa diintooda aysan ku si fiican aysan ugu dhaganeyn oo ayada laani ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta qof bil aadan uu xafidi karo uu xafiday diinteeda ku dhagan tahay markay soo gasho wixii ka qaaday waxaan ka qaadinba shaqo kuma lahan shirkada ka shaqeysaa dabcan waxay leedahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Allah musta'an dadka kalena oo gaaladana hay iska leeyihiin ee wixii markaas salaantooda caadida oo ah ayada halaga qaado ama yaan laga qaadin salaanta Allah musta'an naxariis korkiina ha ahaato way iska dhahaysa gabadhi mar walba waxay ugu sheekeynaysaa diinteeda ay ugu sheekeynaysaa islaamka inay tahay diin wanaagsan inay tahay taban rasuulkeena Cali sallallahu wuxuu yiri balaqu anni walaw aaya waa ina qofka u sheegtaa diintaada waxay tahay qofka gaalka ha qaato ama yuusan qaadanin laakiin adi waajibku ku saarna waa inuu ka dhaca u sheegtaa u balaqda diintiina waxay tahay waxa dhacday marka Allah musta'an mar walba waxay ugu sheekeynaysaa diinteeda islaamka waxa leeyahay marka subaxii marka soo baxdid wadooyinka wax dhib ma kala soo kulantaa dhib ma soo aragtaa ma ay leedahay dhib saa u soo arkaa aniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala i xafiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala subaxii intaanan soo bixin intaysan qoraxda soo bixin waxa diinteena islaamka waxa jirtay dhahday salaada subax fajrka la dhaho
إن صلاة داس قفك دكذنة إلهي سبحانه وتعالى مجنتيسو كجرا واحد ابن ما أركو ما دام مرك عن صلاة دسود دكذو عن صبح واحد بقى إلهي سبحانه وتعالى إلى ما سوق كلنسيو مرك الحمد لله سنة بدأ عن قو إماذا سده ku imaada side ay ku dhacdaa anaga waan la soo faduuliyaa anaga saanaar oo yani wax un bay sheeg kulay waxay dhahday aniga alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala bay mahad u sugnaatay wax isoo faduuli wax isoo dhibo wax wada isoo istaago wax wada igu soo dhibo wala askar wala bili aadan caadi wala shacab wax isoo dhibo ma arko ilaahay ima tusin ba alxamdulillah qof walba gurigiisa taga waxay leeyihiin naagta oo nala shaqeyso waxay dhahdaa diinteena islaamka Allah musta'an weyn waardiyaysa diinteena islaamka anaga dumar hadaan haysiiba jawharada inaga dhigtay hadana waxa jirto salaad kamid ah salaadaha diinteena islaamka waajib ay nagu yeeshay salaad kamid ah in qofkii dukado oo daa'imo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo diraayo waardiye in oo maxay radaa si qurux badan meesha uu ku maray in markaas kuwa ragga oo guriyaha u joogan dumarka meesha kala shaqeeyo oo ragga leh yani xaasaska ah raggooda u sheegay waxay leeyihiin saasay dhahdaa waa beenteed waxaas lama aaminay leeyihiin waa beenteede waxaas lama aamino been idin sheegaysa waxaas ma jiraan kuwa ragga aan sidoo kale hadda waxay u sheegayaan in hooyooyinkooda iyo wixii guriga u joogo markaas waxay leeyihiin way beeninayaan sida caadada waxay leeyihiin waa been hadalkaas xabad kama jiro waa kidib iyo been الله مستعان وحي سيداس أرنتي كو سعوتا أيضا كما أيسان دالين أرنتان إني أباندكتو كما أيسان دالين أرنتان إني كلا آمستو معلوم بو شاكتا إني دين تيدا سيداس تاي دين تيدا أي سيداس تاي دين تيدا أي سيداس تاي ما شاء الله دين تيدا أيضا بأمانا الحمد لله إلهي قلنا قد لي مهد إشكري وسغناتي فالله مستعان وحاد عدي مديرك يا إمادي مالمها كميدة مديرك واتقاني نينك أو ماشا مدحد وآه ماشا لغا شقي شركة دا وحيري تدوقف لو باهن yahay shirkad meel kale ku taala degdeg arina isku xirxiran degdeg in lagu soo xaliyaa la rabaa waa ina warqadihiin aad diyaarsataan waa in aad gawaaridiina aad diyaarsataan meeshaas la aadaya meeshaas loo baxaya waa kaasa waa arintaas la soo xalinaya waa kaasa maalin ilaa maalin wuxuu ilaahay noogu qaat wixii ilaahay idinku فضده قادنيسا يعني قال واي اساس ما دهاي طبعا انا قدرسنو طبعا wax walba ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu saqiro ان ay maxayada ay ku saqir ma waxaan ilaahi subhanahu wa ta'ala saqirna ma saqir maayaan الله مستعان marka way halahay walis diyaari gabadhii muslimada ahaydana way ku jirtaa dadka saafuraya ama dadka baxaya ama dadka meesha kale loo gudbinaya arintaas soo xalinayaan marka Allah musta'an waxa dhacday qof walba warqadihiisii oo shaqadii wixii waa la diyaarsaday qof walba gaari oo wataa waxa la lahay meesha saacadooyin ay qaadanaysa waa in isla caaw la baxa qof walba gurigiisa wuxuu ka soo qaadanaya ka soo qaato caaw la baxaya hay qof walba gurigiisa wax ka soo qaatay Allah musta'an alaabtii qof walba guriga ka kaastay qof walba gaarigiisa raacay waa la isdaba kacay marka laas daba kacay Allah musta'an wixii la socdaba waxa soo gashay salaada fajrka soo gashay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salaada subax markii la aadamay gabadhii gaariga meeshay ku baakintay hadda meeshay maraayana waa duur ilaahi subhanahu wa ta'ala ogyahay xaalkeeda libaaxiyada shabeelada bahalada adduunka ku nool ayaabaysan macquul ay kula noqon karin sax ani ma soo arkin oo ma joogin meesha laakiin qisada waa siday u dhigantahay ma fahmaysaa marka waa duur cidla gaarigeeda joojisay maxaa u joojisay dhaheen meesh waxay dhahday salaada subax dukana ma waalanta ay dhaheen adiga majnuun ma tahay sidee meeshan salaad subax ku dukanaysaa ma naftaada qatar gelinaysa nafteedu waxay dhahday qatar ma galayso oo rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam oo ilaahi subhanahu wa ta'ala inoo soo diray risaaladan inoo soo gudbiyay maanta salaadan inaan dukadana asiga ii soo gudbiyay oo wuxuu yiri man sallas صباحا فهو في ذلة الله قفكي صلاة الصبح دكذا وحو كجرا إلهي مجنتيسا وحبا ما أركاي إلهي سبحانه وتعالى إلى لناي مركا وحبا ما أركاي هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسود دكتي وحيد دكتي لا وذي ركع والرسول كان عليه الصلاة والسلام وكشاقي خير من دنيا وما فيها يعني لو ركع صلاة فجر كهوريسا ورسول كان عليه السلام وحو كان جري سورة الإخلاص هي سورة الكافرون يعني هذه بالصومالي عاودوا هذه سورة حوا يقول يا الكافرون أنا أنجا
iyo suuratul qul huwa allah labadaas oo ku dukan jiray salaada fajr salaada ka horeyso labada rakac oo sunnada ah waa labadaas rakac sunnada subhanallah waa ajiib daa'in isku day inay naftaada la qabsato isku day inay naftaada ku taxluujisid waa ajiib labadaas rakac ma fahmaysaa allah musta'an marka waxa dhacday gabadhii way soo degatay labadii rakac ay dukatay labadii rakac markay dukatay waxa imaaday ayaga gawaarida ay ku jiraan waxay ka fiirsanooyin muraayada dhexdeeda ay ka fiirsanooyin waxa meesha isku soo hareereeyaa lagu dhahay subhanallah libaaxiya meesha isku soo hareereeyeen salaadeeda kama aysan bixin salaadeeday wadatay salaadeedii markay wadatay waa maxaydada waxay isleeyihiin khalaas qoftan waa la cunay libaaxyadii markay agteeda imaadeen in salaadii ku jirto ayagiya hadana subhanallah dib u noqday waa in qof waran u haysto kale ama qori holcay ileen libaaxyada inta badan waxa la lahay sida la ii sheegay way ka baqaan qoriyada oo holcay waxyaabaha holcay way ka baqaan ama waranka aad ay uga cabsada marka libaaxyadii in subhanallah qof waran u haysto kale ama qoryo dab ah u haysto kale ayaga dhanba gadaal ay u wada sikadeen ayagoo caadi ah subhanallah inay sujuudayaan amal ayba noqdeen qaabadooda ama duurkoodii ku noqdeen way yaabeen macquul ay la noqon weeday sidee waxaan ku dhacday way salaam noqsatay ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmaheeda u taagatay ilaahay subhanahu wa ta'ala ay bariday way duceysatay subhanallah way soo degeen sidee ku dhacday dhaheen maxaa dhacay libaaxyada maanta waxay islaheen way cunayaan sidee ku dhacday markaas waxay dhahday ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkeena inuu soo dhiibay xadiis saxiix ah baa sidaas leh qofkii salaada subax dukada wuxuu ku jiraa ilaahay subhanahu wa ta'ala magantiisa maalintaas oo dhan waa la ilaalinaya ilaa ay qorxada ka dhacdo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo sameeyna marka saas darteeda diinteena inoo sheegtay dhahday waxaas iyo wax kalaba wax naga ma dhibaayo maadaama aan dad islaam nahay hadii aan xafidno salaadan waxay dhahday salaado dhan inaan xafidno waa waajib ina saaran laakiin salaadan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri maxay raadaasi rasuulkeena saasoo inuu soo dhiibay oo xadiiskaas wato ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri wan najmi idha huwa ma dhalla saahibukum wama qawa in huwa illa wahyu yuha hadal walba uu ku hadlo rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam waa ilaahay subhanahu wa ta'ala wax uu ku soo dajiyay ku quwad weyn oo ah jibriil alayhi salaam ilaa diintana fahamsi rabbiyo ilaa diintana bar ilaa diintana fahamsi آمين يا رب العالمين marka sidii ayagii dhan waxay dhaheen waxaan raali ka nahay waxaan maanta aan qiraynaa diintaada inay sax tahay waxaan rabnaa si alla si aan ku soo islaameen inaan sameyn ashhaadtunkay u qabatay meeshii ku ashhaadeen lixdii kale ayada la socotay waxaan dhaheen waxaan rabnaa inaan dukano dariiqeeda natu salaadan hadda aad dukanaysay waxay dhahday marka aniga faradka weli ma dukanin sunnada baan dukaday hadda safaradka aniga idin dujinay sidii ayay ku dujisay faradka kuwa naagaha ay kuwa nimankan tabcan maadaama aysan aqoon u lahayn meeshii ay ku fahamsiisay sidii u dukanayaan meeshii lagu wada dukaday diinta islaamkana lagu qaatay Allahu akbar takbir Allahu akbar ila dhahadine إلهي سبحانه وتعالى دينتين هجع ليسي ودتكان عن دينته هيسنين آمين يا رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى أنا جنا دينت أن كل لنا وإلهي سبحانه وتعالى حق لجوع عبد وح والبوين وشيء إن أن كل قرن حق أن قصعنا الطريق الصح أن قادنا إلهي سبحانه وتعالى هنوسقره وين هو أذقته هي صح يعني لكن هو واجب إن صار إلهي سبحانه وتعالى محيري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي سبحانه وتعالى موحكله بإنه أبوره إن أن أصيق عابدنا معه إلهي حنا قال وكوب السلاده سشنتا فرضك أو مر والبؤ إن محل ذا توسية وسي قروح بدن أدو كذا سيد رسول كان عليه الصلاة والسلام كسرناتي أتوسيو وندو كذا إلى نين لحظا سنة حتى 60 سنة ندو كناي الله المستعان 60 مايا
60 year qof dukanayay salaad aan laga aqbalin macad Allah ka waran salaad waa istaagaysa Allahu akbar assalaamu alaykum waraxmatullaah no salaada sidaas ma ahan salaada aan iska saxno salaada sida la iskaga saxo barta safiina salaad aqrista waxa jir fiidiyooyo ka sheekeynay sida salaada loo dukanayo wallahi ani maanta wallahi waa idan dhaartay maanta alxamdulillah qof maanta salaad ibaray ma dhahay laakiin buugaagta riyad saalixiinka safiina salaadka صحيح البخاري رحيق المختوم كأنت ساعدين ما أنت مدرسة أو آدي يعني مدرسة اللي إجي عن قصة برتي ما أهان أنت عن هذا يعني إذا شيء جاي مس آيات كأيضا سوق هذا إن محيرة وحى إبري إن رياض الصالحين كأصو في صومالي هذا وفي عين هي باب التوبة باب الصبر باب إن كذا باب اللي هي وحياه بدنا كفائدة يسين وحياه بدن وجعلان يسا إن أقرس كيسة بيج وكوديوا صحوة وين وبدن هي لكن بيج وكوديوا رياض الصالحين كأدي حتى أنا ما بحسوا سبحان الله لنا لو بدكم كوب يتمكن يقدم بيس أقرس كيسة لكن آيات والبو أماشي كبرتي ما أنت وان هيا وحفظناها إن waxyaabaha qaar daliil alxamdulillah waa adeegsan karaa iyo xadiis ma ahan taasna in madrasa aaday ama iskool lagu soo baray ama islaamik aan ka soo baxayno ma ahan intaasba aniga nafteeda isbaray aniga Jawaar Xuseen aniga nafteeda isbaray ilaahana uu saaciday alxamdulillah qisadan meeshay ku dhamaatay salaad subaxna insha Allah aan xafidno labada rakac oo salaada subax ka horeyso قاري عفماتي برواقة إذا رجينا وحي أنصحي ربي سبحانه وتعالى أي أسقناتي وحي قلدني نفتي الشيطان أي أسقناتي مفهمي سن نقفة أجيري أو وانكو عاي أيان دويد الله مستعان يعفي يسخري أقسم بالله وحي عاي وحي أمان والله بالله تلاي واحد أمهاي لأنه قفا عيب لهن ملهن عيبه يجا إنه إلهي سبحانه وتعالى أستره عيبه يجا إنه إلهي سبحانه وتعالى يسره أكون مشغول صنعها قف والبني والله عفي مسامح أدونك ونعبها أني قف إنان وحناقف قف أنا وحناقصن إنان لنعيق دولك ديو ماي نفتان وبحي كرتا تاسم كجري قف والب هذا الولب سوقري أما هذا الولب إلهي أما هذا وحان وهيستملهن والكاذبين الغيب والعافيين عن الناس خلاص كفاية أنت عصنا وفيلا فاهمين marka khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo idin rajaynaa walaashin Jawaar Xuseen oo idin leh ku soo dhawaada channel-kayga waa wax yar ba Allah ka dhigay wax faa'iido doontaan insha Allah ta'ala asxaabtiina u share gareey wixii ra'yigiina comment igu reeba khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo idin rajaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh